وحقبت وزارة بيرها ده وحلا شيغا ما هي ده واحد كارك كريسان مشاريع وزارة وحرمرينتا بيرها أي فلسي أو سندكي ugu horeysay ay dawladda Somaliland oo aan la kaashanayn cid kale ay bixiso 3 mashaariic oo aanu ku qiyaasnay inuu yahay 2350 hektar oo lagu beeray dalagyada kala duwan haruurkii waa la soo saaray arabiqidii waa la soo saaray laakiin meesha maxaa yaala riwaayadana waad ka arkayseen in la cuno cuntada la soo saaray ee wadaniga ku hadlaya magaca beeralayda guud ahaan waddanka Somaliland waxaan u mahadnaqaynaa horta wasiirka wasaaradda beeraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo maanta dawladana ay maanta doonayso inay ku nuxnuxsato sidii wax soo saar loo gaari lahaa isku filaashi gaari mayno weli marka reality-ga doonayno laakiin waxaynu bilaabaynaa wadadii horumarka beeraha aynu bilaabaynaa beeralayda iyo dadka wax soo saarka ka shaqeeya ay u korodho ilaha dakhligooda boqolkiiba 20 uu kor u kaco dadka beeralayda 5 sanadood ee lagu guda jirno maxaa yeelay walaalayaal haddii aynaan dhiiri gelinin dadka beeralayda ee wax soo saaraya oo inaan waxay soo saaraan ka iibsanin ma suurtagelaysa in wax la soo saaro beeralaydu waxay ahaayeen kuwii iyagu cagafna aan loo geyn jirin lacag aan loo geli jirin cidina la haramayn jirin
عدي لا تدوم جلنا عدي نور بيا قبر بيضو إسحقامي فيها ما أنت لما تصير كبيرون وحيد لا تنتاجي عرفتي وحيد لا تنتاجي سيركي وحيد لا تنتاجي بيه بلا واقع عيال واقع maanta aynu joognaa ama xafladani ku saabsan tahay maalinta adduunka oo ku beegan 16 Oktoobar macnaha loo dhigaa wax kale ma aha xigmadda ugu weyn ee ku jirta waxa weeye in qofka bini'aadankii uu si sharfan u noolaado oo uu wax la soo baxo oo uu waxa ku noolaado si uu u noqdo qof qiyam iyo sharaf iyo karaamo iyo caafimaad ahaanba u nool waxa caalamka loo sii socdaa oo wadamadan adduunka u sii socdaan wadan walba inuu wax soo saarkiisa kor u qaado waayo waxa lagu tartamayaa ciidda waxa lagu tartamayaa wax soo saarka waxaad arkaysaan in adduunyada ay u sii socdo dhinacii wax soo saarka marka wadan walba hadda wuxuu gaarayaa in waxa isaga ka soo saara isaga keligii ku filnaado haddii markaa reer Somaliland ay doonaan inay cuntada dibadda ku tiirsadaan yaa cuntada inoo keenay marka waxaynu u baahannahay inaynu isku tashanno tijaarteena iyo dawladda iyo beeralayda iyo dhammaan inaynu isku tashanno sidii aynu dalkeena wax uga soo saari lahayn raddii wasaaradda horumarta beeraha iyadoo ka duulaysa siyaasadda dawladda ee uu hoggaanka noogu hayo mudane muuse bixi cabdi waxaanu rabnaa inaanu taasi xoojinno waana markii ugu horreysay ee ay xukuumaddu talada maanta haysaa miisaaniyadda ku darto 3 mashruuc oo aanu ka ingelinay saddex gobol oo ka mid ah jamhuuriyadda Somaliland inagoo aan ogtiin dhaqaaleenu inuu kooban yahay waxaanu iminkana ku dari doonaa sanadka soo socda haddii la yidhaahdo inaanu gobollada sool iyo sanaagna ka hirgelinayno wax soo saarka oo aan awood badstaarayno iyo gobolka awdal gobollada saddexdaa gobollad maanta aanu ku daraynaa sanadka soo socda haddii la yidhaahdo gobol walbana aanu samaynayno waxyaabaha uu gobolkaas u yahay wax soo saarkiisa oo aanu gobollada u qaybin doono gobolba in lagu tixgelin doono miisaaniyadda siduu waxba la soo baxo si loogu tartamo wax soo saarka waddanka oo aynu uga maarano cunnada dibadda ay nagu imanaysa idin kuna ku diirsada